السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada reernabadii nolol meel walbeeto dadweyda kaga sugan tihiin waa waaska duqbilow ahaa kablo faarax walaalkiis macowkii ka yaraa Bashiir Balla mataanaayeen xasan goro saaxiibkiis qarashow diriskiis ku noolaa uraa'una garseeku saaha jaaba kaja lagti macala shuuriye banaan weyn shanta baqabqoray gacmaha ilaahay idin ma gooyo reernabadii nolol nalaga adkaan maayo dalka Soomaaliyeedna inuu hagaago madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waa ka go'an tahay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxay u jeedaa arrin la yaabkeeda leh waan galayaa waxaan rabaa sida ay tahay intaan kor istaago ummadda Soomaaliyeed ee wanaaga jecel inay fahanto marka koobaad iyo marka labaad reernabad iyo nolol gacmaha ilaahay idin ma gooyo sheergareeya cadaladan gaarsiiya beej walba iyo meel walba ku tuura idinkoo maasan siday wax yihiin yaa loo soo gudbinayaa dalka Soomaaliya muddo dheer yaa macnaha la soo kakabay meel fog buu ka yimid meel aad u fog ayuu ka yimid waxaad arkaysaan maanta niman sheeganaya mucaarad iyo ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed oo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed ku ciyaarayo inay wax boobaan wax dhacaan doorashada ku shubtaan doonaya ummadda Soomaaliyeed u jeedaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xafiiska madaxweynaha warqad bay soo saareen maanta warqadaasi madaxweynaha wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo uu dalkan soo maray waxa ugu muhiimsan labada qodob ee madaxweynaha uu soo gudbiyay waxay ahaayeen in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble doorashadii loo igmaday ee madaxweynaha baarlamaanka Soomaaliyeed hortiisa uu ugu igmaday in uu ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble qabto doorashada uu u igmaday inuu ra'iisul wasaaraha ku guuldareysto qodobka labaad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku baaqay shir ay isugu imaanayaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo madaxweynaha qaranka shirkaasoo looga arinsanayo 17 September heshiiskii ahaa doorashadii lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha oo dhaqaaqo weysay in waxa soo dhan lagu gorfeeyo ayuu madaxweynaha ku baaqay labada arrimood waa laba arrimood oo muhiim u ah dalka Soomaaliyeed in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ummadda Soomaaliyeed uu runta u sheego oo uu yiraahdo ra'iisul wasaarihii aan baarlamaanka hortiisa ugu wareejiyay doorashadii waa qaban waayay ee Soomaaliya hal isu yimaado inuu yiraahdo madaxweynaha waa sababta uu head of state u yahay weey warqadu madaxweynaha soo saar labada qodob ayaa ugu muhiimsanaa iyo qodobada dastuuriga ah ee madaxweynaha uu soo xiganay okay waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed ay daawanayso ummadda Soomaaliyeed ee wanaaga jecel ummadda Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya rajada wanaagsan ka qabo in arrinta la fahansiyo u baahan yihiin si fiican u dhageysto ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble doorashada lagu wareejiyay muddo hadda 9 bilood ka soo wareegatay ka hor yaa doorashada lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada waxay kulmeen May sanadkan hadda ku jirno ee 2021 ka ah ee maanta hadda sii dhamaanay waxay soo saareen ayagoo wada jiro jadwalkii doorashada waxay soo saareen qaabkii doorashada gudiyada loo magacaabi lahaa already waxa soo dhan oo dhacay oo doorashadiina ay bilaabatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble si uu xilka u dheereysto wuxuu har iyo habeen guryahooda dhex taagnaa nimanka mucaaradka sheegto waana idin cadeynaya ummadana way u cadaarintaa ayada dhageysto nimanka mucaaradka sheegto ee waliba ku jifada asaga ee ugu horeeyay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waad aragteen qaabka uu u kala hadlayo waad u jeedaan qaabka uu u kala hadlayo si wanaagsan oo qurux badan baad u arkaysaan niga la yiraahdo Rooble waxa uu si hoose ula hadlay nimanka mucaaradka wuxuu yiri doorashada Soomaaliya ka dhacayso ee aan hadda wado aniga kuma qanacsan idinkana kuma qanci doontaan ee waxaan idinka doonayaa inaad fawdo bilowdaan si doorashada aan u sii dheereeyo dhageysa dalka
وحق مدحوينها هايو وحق ومدى الصوماليات إندها كوضا هيسوي رئيس الوزراء محمد حسين روبلا كو أورانيا نمكا معاركة doorashada Soomaaliya hadda ka socoto mid aan ku qanacsanahay ma ah asaaranay mid aad idinka ku qanci doontaanna ma ah ee waxaad bilowdaan doorashada inaad fawdo gelisaan nimankii mucaaradka sheeganayay ee jifada hoosala ahaa ra'iisul wasaaraha miiriyaha yimaadeen dhagiisa dalka ilaa doorashada Soomaaliya oo dhan baa loo qabanayaa Cabdiraxmaan Cabshukuur kaligii looma qabanayo miiriyaha yimaadeen waxay bilaabeen fawdo iyo buuq waxay si toos ah u yiraahdeen doorashada hal la istaajiyo dhagiisa dalka waxay yiraahdeen doorashada hal la istaajiyo ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba 90 waa yaabanayeen marka laga reebo 10% oo ku fikir ah ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabshukuur iyo ra'iisul wasaaraha iyo Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradka qaarkood ugu horeeya Sheekh Shariifna arinta waa la yaabanayeen waxa dhacday markay warqadaha soo saareen ay yiraahdeen doorashada hal la joojiyo oo doorashada dib hal loo dhigo ay yiraahdeen ra'iisul wasaaraha qodob dastuuri ah oo uusan marnaba uusan jibin karin yu faraha la galay waa maxay qodobkaas qodobka guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan way madax bannaan yihiin baa lagu leeyahay waxa heshiisyadii 17 September iyo dastuurkana waa ku qoran tahay ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha yaa magacaabi kara guddiga doorashooyinka ama guddiga khilaafaadka anyways isku duduub oo dadka doorashada qabanaya guddiga doorashooyinka qabanaya noocyadiisa kala duwan ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha marka doorashada loo xil saaray yaa soo magacaabay xilka qaadistooda kala diristooda waxa iska leh baarlamaan iyo guddigaasi hogaamiyaha ay marka doorteen ayaa iska leh ra'iisul wasaare maxamed xuseen roobla asagoo si hoos u hadlay ragga ku yiri buuqa doorashada kuma qanacsani doorashada dib u dhigaana dooraya iduguna kuma qanci doontaan buuqa galiya yaa asagoo madaxweyne la tashan maamulada gobolada aan la tashan oo mucaaradka kaliya la tashaday yu dastuurkii Soomaaliyeed iyo heshiiskii siyaasadeed ee 17 September yu jubi wuxuu sameeyay guddigii doorashooyinka ku kala diray oo wuxuu yiri guddigii doorashooyinka khilaafaadka total 7 xubnood ba ana fiiji haddii meeshan doorasho Soomaali loo qabanayo ay tahay oo in dhaxdhaxaad laga noqdo la doorayo oo ummadda Soomaaliyeed raas caseer ilaa raas kaambooni Soomaaliga degan doorashada inuu ku qanca la doorayo waxa weeye waa in ay ka madax banaanaataa shakhsiyaad siyaasi ah waa in ay ka madax banaanaataa dhagiisa dalka adduunyada hadda ku noolnahay tusaale waddanka Mareykan baa degana aqalka maxkamadaha madaxweynaha dalkaas magacaabayo laakiin ma fiiji karo dhagiisa dalka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa wuxuu magacaabaya qofka maxkamadda ma garanaysa dalka ugu sarreeysa ka mid noqonayo madaxweynaha magacaabaya senator ba ansixinayo fiijin haday noqotona waa howl u taala maxkamadaha iyo senatarka sharci dejinta u taala way ma aha mid u taala madaxweynaha mid u taala ma taanada Soomaaliyeedna doorasho rabnaa xalaal ah doorasho dadka Soomaaliyeed oo idil ay ku qanacsan yihiin baan doonayna haddii ay tahay meel shakhsi uu wuxuu doono sameyn karo Soomaaliya dawladnimada lagu ma sheegeen shakhsi ba xukumi lahaa awood intuu sheegto dalkaasi military iyo qaabku doonto ku qabsado wuxuu doonaa saga fiijin la wuxuu doonaa shaqaalaysiin la laakiin ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay dawlad waxaan rabnaa daadajisan dawlad macnaha kala dambayso nidaam iyo dastuur iyo heshiis siyaasadeed ku shaqeysaan doonayna Soomaali baa tiri heshiiskii 17 September yaa waxay ku qoran tahay in ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha markaasi hoggaanka federaalka laba sheegay qofku yahay inay soo magacaabaan heer federaal gudiyada ka imaanay heer maamul goboleedna ay soo magacaabayaan maamul goboleedyada madaxweynayaashooda haddana waxaa ku jira qodob oranaya in aysan xilka ka qaadi karin mar haddii la ansixiyo oo doorasho dhacdo gudoomiye doortaan waxa mas'uul ka ah gudoomiyaha loo doortay guddiga xalinta ee federaalka guddiga doorashooyinka ee federaalka guddiga heer gobol ee khilaafaadka guddiga heer gobol ee doorashada gudoomiyaha ay markaa doorteen ay cod ka siiyeen sida dimuqraadiga yaa macnaha asagoo la tasharayo gudiyadiisa hoose iyo shaqada ka qaadi kara awood uma leh madaxweynaha Soomaaliya inuu fiijiyo guddiga doorashooyinka gudoomiyahooda
رئيس الوزراء أو كسي هو سيان الله مد أود وملك جدي حلن خلافات إنه شغلة كقام ماشي وحو كدقي ديكتاتور ومضى الصوماليات إذن ووجد دارن تايدا قبل شام ما يسن أهين قاب كنت من دو وقاب كهذا كسو هذلي رئيس الوزراء دون إنه عمري قد يرشت دون إن الدور شكل على الضلك الصومالي دون إنه هنتقرن وبوب الدوري هنتقرن دون إنه بوب يعني من المدرسة سوقه الرئيس عبد الرحمن عبد الشكور يهبين يمان يقولوا هذه تلفونه كجري أسجع صومي الشمي أو يجري أرض إذا عدها تجا معلمة هي قيليين أو يبوغين قرض المعارض كاللي هي أود مره دستوري أنا يا عيال شكمت بعنا هذه جاي داوريو إنما كمشرحين تشجعني أود باتين مواطنين صوماليات باتين ده كلا دورتي official elector كأه ودتك الدولة ده كشقين وجوهرية مدحونها هي معمل جولة مدحونياشون رئيس الوزراء نفتر كيسة official elected ما هو وقفل الدورة nomination بقيس هذا الكلام جدي الدورشون كأنه كلا دريو وهير فدرات إن عقلافات كأنه كلا دريو كلامه وصلت شنين مدحونها جلمدو كلامه وصلت شنين مدحونها بدلة كلامه وصلت شنين مدحونها هيرشبل كلامه وصلت شنين مدحونها كوفر قلبت كلامه وصلت شنين مدحونها جبلان waxa uu kala tashaday uu qadka soo gishtay oo si hoose uu ula hadlay nimankan mucaaradka ayagu ku qancinayay ayaga qancintooda iyo Soomaaliya in doorasho loo qabto lagu qanco oo one man one vote macnaha doorashadan oo xalaal one man one vote ma doorasho oo xalaal inay dhacdo oo Soomaali ku qanacdo iyo rag ilmaadiradii inuu qanciyo waxa ka weyn in Soomaaliya oo dhan ay qanacdo dhageysa dalka laakiin roob la wuxuu door biday oo umada Soomaaliyeedna marxaati ka tahay oo si cad oo bareer u daawanayso in adeerkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ragga ilmaadiradisa ay mucaaradka sheegtay inuu qancinayo oo Soomaali waxba ka gal oo Puntland uu tuuray oo Hirshabeelle uu tuuray oo Koonfur Galbeed uu tuuray oo Jubbalandna uu tuuray oo Galmudugna uu tuuray waxa daliil idinku filan oo cadaan idinku filan madaxweynaha Puntland waa tuu meel dhaw tabaydaba ka hadlayay uu yiri macnaha raggan qaylqaylinaya buuqay sababta waxa soo diray oo hawsha ka dambeeyay ra'iisul wasaare ee oraya madal hal la sameeyay iyo dawlad kale hal garab dhisiya habootayaan dani wuxuu si cad oo bareer u sheegay in macnaha carta lagu noqonayo dawlad laga garab dhisiya waxa aysan shaqeyn haday dawladdan burburto oo hadal cad ah oo raganimo leh iyuu uga soo gudbiyay barta TV-ga isku soo duduub marka waxaan ka soo hadlayo dhow waa xaqiiq weey waa wax jiro oo reality oo fact ah madaxweynaha markuu inta arkay ee uu dareemay ninkan rooble la yiraahdo inuu san diyaar u ahayn in dalkan ay doorasho ka dhacdo markuu arkay madaxweynaha Soomaaliyeed awoodda uu u leeyahay inuu dalkan liid gareeyo markuu arkay oo uu xaqiiqsay dastuurkii Soomaaliyeed iyo waxa looga fadhiyo madaxweynaha wuxuu ku baaqay oo uu umada Soomaaliyeed u soo gudbiyay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ra'iisul wasaarihiisi ah oo asaga uu shaqaaleysiiyay ma ahan Rooble in la doortay ma waa inuu shaqaaleysiiyay in uu ku fashil in dadkii la doortay ee awoodda hadda hayo ee maamul goboleedyada ugu horeeyaan ee Rooble intuu ka talaabsaday ilmaadiradiis uu la tashanayo madaxweynaha yiri shirah la isugu yimaad waan soo dhaweynaa haddaanu nahay umada Soomaaliyeed si wanaagsan baan u soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa in madaxweynaha iyo maamul goboleedyada madaxweynayaashooda ay go'aan masiiri ah soo saaraan halka ay ugu qabto marka dhageyso soo dhaw walaan reernabadii nololna sheer gareey cadaladan gaarsiiye beej walba iyo meel walba ku tuuro runtaan u sheegnaa nooga guuleysan maayaan social media mana aaminsanin qabiil wax la yiraahdo Soomaalinimo aan aaminsana Soomaaliyana guuleysanayso xaqiiqda dhabta dhageyso dalkan shalayta markii Rooble inay khiyaano socotaan soo dhageyso Rooble shalay markay doorashada smooth-ka u socotay oo Galmudug way ka bilaabatay oo Koonfur Galbeed ka bilaabatay oo Hirshabeelle ka bilaabatay oo hawshu ay socotay oo si wanaagsan u socotay ee Rooblena umadu ay kalsooni yar siisay dhageyso dalkan kalsooni yar ay siisay oo tiri doorashadii way socotaa ee xildhibaanadii almost 20 ay soo baxeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa ninka idaacadda taagnaa dhageyso dalkan ya ninka idaacadda taagnaa ee oranayay doorashada hal la joojiyo doorashada dhici meesha ku hay Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa daawo clipkan yarka
BBC da soo ka hadlay waa codkiisa weyn marka anaga waxaan u baahanahay doorashooyinka inta la hakiyo la isaga yimaado waxa qaldan la soxo doorashooyin jadwalkeeda isku mid yahay isku waqti bilowda isku waqti dhamaada in la sameeyo oo siday ku dhacayaan habraacooda la isku wada raacsan yahay oo loo wada joogaan rabnaa ee doorasho tashiilaho qofka madaxa goboleedka jooga maalinba 2 ama 3 ama 4 asaga jeebkiisa iska soo saaran haddana iska joogay haddana 2 3 soo tuurayo soo rabo oo ugu tasarufayo ma rabna anaga وعد رحاب شكور شالي مركي دور شالي سمود سعود اي روبلا كالسوني دا يرلا سيال يري هادا وحبو وضا وحبو سمينيا إني روبلا إيا نيكن إيا جروب كان يسوقي هي عد رحاب شكور وحكو أغانيسا ما أنت مركي دور شالي هكيي إلا دور شالي هكيي نيكن اللي يري هذا روبلا كدقي حالين تقلافات كأوشن أود ولهين إنو كلا ديرو كلا دير كدقي دور شالي كهير فدرالو دنبا كلا جب maamul goboleedyadii baa macnaha ka soo horjeestay Roble dhagiisu ragii shalay Roble uu soo diray uu yiri macnaha gamekan ii ciyaara ee waxa sameeysan doorashada buuq galiyo dhawaaq kula ee iska dhigay inay Roble ka soo horjeedaan maanta waxa difaaciyo Roble ninka la yiraahdo Cabdi Shkuur qoraaladu soo qoriyay wad arkaysan fiiri qoraalkan Roble waa in garab la siyaabo ku leeyahay dhagiisu Roble waa in garab la siyaabo kulay wuxuu kuleeyahay Roble doorashada waa inuu hadda wadaa u socodsiiyo doorashada socodsiiyo Cabdiraxmaan baan shalay ku dhahay doorashada hal la joojiyo xaqiiqdu marka waxay tahay ciyaarta iyo qaab darrada uu ninka ra'iisul wasaaraha dalka la yimid ummad Soomaaliyeed oo 20 milyan ah ya dalkan u hanqal taagayso Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo adeerkiis Roble dalkan u xanibnaan maayo doorasha dalkan laga doonayaa doorashana dalkan ka dhacayso madaxweynaha Soomaaliyeed baa shalay ku wareejiyay inuu doorasho qabto ninka la yiraahdo Roble maantana madaxweynaha wuxuu qiray in Roble doorashada uu ku fashilmay doorashada inuu Roble ku fashilmay iyo madaxweynihii Soomaaliyeed qiray madaxweynaha wuxuu isku baaqay in maamul goboleedyada isugu yimaadaan shir masiiri ah oo ummadda Soomaaliyeed lagu samata bixinayo wayna dhacaysaa shirka wuuna dhacayaa insha Allah haduu ilaahay Roble asaa doorashada dib u dhigay cimriga dheereysanay madaxweynaha Soomaaliyeedna doorashada wuxuu kugu dhiibay in cimrigan uusan dheeraan oo doorasho dalka dhacay hadayba doorasho dheeraanayso cimrigana uu dheeraanayo oo ummadda Soomaaliyeed ku qanacsan tahay in doorasho dib loo dhigo Roble ra'iisul wasaare si ahaan meys ra'iisul wasaare cusub oo xalaal ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay oo in adeerkiis Cabdiraxmaan Cabdishakuur aan ka amar qaadanayn kuna qancinaynin masiirka ummadda Soomaaliyeed yaa ra'iisul wasaare dadka looga dhigaya ilaahay ha ka dhiga xataa khayro dib u soo noqdo aadiyaad sheer gareey cadaladan gaarsiiya beej walba meel walba ku tuura naga adkaan maayaan runtaanu sheegaynaa xaqiiqdaanu sheegaynaa miidiyahana xaqiiqda ku dambeynaysa beenta iyo is-ooysiinta beenbeenta waa laga tagayaa aadiyaad aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu